calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay anna waan ogahay de waxa ka dhigay baaba taas aba فنادى عن كيس فدسمو أو مانتور بنت كلها اللي سيه مجال بورمه أي واحد سأدو هذا الشيء خسارة مالي من الشيء اللي جيستي قولي كده سنة قلبيت كمجال بورمه خسارة سوي جيستين وسرده لها قولي كي جرد سملا أو كاشنا صا دوده سي مجال بورمه وحنا يفادوا الشيء إن يجني بالماء أي لقلين ما ممكن دوده سي يوسرده لها قد كوا صلح يري إن أنا دمين دونين فنادى أي واحد إذا معلوس وشدي سي وسرده لها قولي كي جرد سملا يدو أرماسك هلا سنة واحد تري كسوغنا هي وقريجيجا قريجي شلل الدمية وحكوا يلا قلبيت كمجال بورمه أيربوت كي بعد واحد يرنوش أيربوت كانوا دونه إن لبويك مركان شوقي دلكا أيه هرت قريجان لقو قري دمس تيجي مال ويكان كايمي بعد دمس لقو قري معلنتي دمس لقو قري waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Boorama habeenkii markaan garaacay aan ku walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray ee say wuxuu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu 2 bilood haduu ka horeeyay kuma jiro dumista guriyaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii 2 bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa 30 by 30 shaqadan ka dambeysana aniga leh halkan maayarka keenay guriga markuu fiiriyay wuxuu igu yiri wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay size-kay gurigayga shaqadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yiri wixii gurigaaga xagga ka xiga airport-ka iska leh maadaama ay tii noqonayso yaqalkaaga dhaafayna waxaan sameyn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr weey qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku radaa engineerkii dhisayay baa jooga dhulku ku fadhiyo qiimihiisana dadka Boorama degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisaan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku radaa Saleeman xafiiskiisaan ugu tagay waxaan ku radaa Saleeman waxaan kula socdaa gurigayga baa dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahinoo shay wuxuu ka yimaaday buurahan maxaan ku radaa Faaraxyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha hal bawle ah oo magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa wala arinta inaad wax igala qabato gurigii soo eegto Saleeman wuxuu igu yiri gurigaaga dayrkay kaga dhacday inta yar dambe dayrarkuna dhulkay la mid yihiin dhulka iyo dayrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleebano waxaan ku leeyahay walaal geed meel ka baxay ma aha waa gurigaygii aan dhistay ee Boorama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleeman maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu sameyn doono wax kasta oo gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arintan waxba ka qaban karin waxaan ii sheegay wasaaradda hawlaha guud inay maxaan ku radaa arintan ay ka mas'uul tahay Saleeman baan ku laabanay Saleeman waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda hawlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto waxa kale uu og yahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel oo kala taraafalayo oo cid ba anfacaysa ahayn buurahan maxaan ku radaa Faaraxyood ay ka timid oo in dhinacna ay ka timid cid deganeyn dhinacana ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleeman waxaan ku walaalow saddex shay mid sheeg wadadani maadaama gurigayga ku joogsanaysa intaanay galin inaad joojiso ilaa sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hormartay inaad isticmaasho daawal badow baan nolahayn oo gurigu saddex wado lahaa iyo inaad lacagtayda ii celiso guriga sida doonto baad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anide meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan ana gatay waan cashuuray Soomaaliland $1,200 bay 3 sano ka hor igu cashuurtay dhulko kaliya hatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi la igu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helo baa gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dawladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga hadii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayna lagu sheego sheekadu halka markay inamada noo mareysay waxa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda hawlaha guud haysta ninkii baan 3 week sugayay halkan buu yimid
magaciisa ma xasuusto Cabdilaahi maxay baa la yiraahdaa agaasimaha hawlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sareeya halkan uu igu yimid waxaan ku yiri walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arrinteedo tafatiran buu hayay wuxuu gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofka taayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku raay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yiri anigu nin ma yihi engineer ma yihi hawlahani waxa weeyaan waa siday wax lagu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yiri in adeer Somaliland geed baa xaq helay oo dawga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guriga waxaad ii sheegtaa xaq uu geed helay ee gurigayga heli waayay inanka intaas oo ka xanaaqay furku tuuray oo baxay sidii baanu isku ogeyn guriga la iigu yimi anigoo raba inaan maalinta hadlo waxa la iigu yiri hadlin waxa maqan bada saafkii gobolka bada saafka sug bada saafkii baan sugayay sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxa la ii ballamiyay ninka hawlaha guud ba haysta ayaa la ii ballamiyay ilaa Cabdilaahi Abakar kiibaan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan beddelanayo dib u dhigayo nimankan inta daba soconayo de 2 bilood iyo maalmaha la ila meereysanay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan baro saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minka inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in la iga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxa lagu ku soo waabaristay aqalkaygu carfiidad la galiyay horta dad baa waxay leeyihiin guriyo badan baa la dumiyay guriyo badan lama dumin gurigayga la dumiyay shalay guriga halkan ku yaala abtigay baa leh faami baan ahay inaan kan gurigiisa shalay isagana carfiidada la galiyay faami baan ahay marka gurigaygu horta koow buu noqday in shalay la dumiyo mid kale dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayay la islama gaadhin wali dawiyadii la waxa socda mashruuci dawiyada la sameeyay baa socdo dawiyadii ma dhamaan waa inay horta meeshii daw noqonayso dhamaato roodhadka waaweyn iyo kuwa yar shaxdaaba inay dhamaadaan marka dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego de marka dumis haday noqoto iyo dumis hadaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa de maxaan ku idhaahdaa lagala hadlo de xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dawladdu lahayd iyo wax la isiiyay iyo wax meel lagu waa maalkaygii يا إن أنا أقول مالكيجا كسرعنين وأنا كتجين إلى هنا وأجيها Somaliland وأكتها نمانك أرنت أنا وحل سعرا أنا قد وان دعونا يا وان عبنا يا تونا أورن معي أم بمالكيجي بيدين علينا يعلنوا دوحن حق لها حق يقعد مرينيسان أم بدي ولا ليالو مقالبنا ودشوفنا وان كل ما sidoo kale faanada hadda ka sii wadata ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Somaliland ay xarig ugu hajabtay oo qasaar burburka inta la eeg la gaarsiiyay oo gurigii carruurtayda carfiidad la galiyay ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonto toona aanan garanayn ayaa haddana waxa ay dheertay in xarig la ila raadsanayo oo la igu yiri maxaan ku dhaday isa soo xiray xarig baa tahay 3 maalmood ka hor baa la ila soo hadlay maalintii saddexaad koobaad telefoonka ma qaban because aanu telefoon aan garanti badan ma qabto shalay maahina daraad baa la ila soo hadlay waxa la igu yiri saldhigga dhexe ee Hargeysa ayaa laga doonayaa kaale de waxaan moodayay waan fahmi waayay badii saldhigga dhexe Hargeysa waxa iga soo galay bari baan iman baan ku yiri anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tagaba saldhiggii dhaxoon idhaahdo de maxaa la igu haystaa ayaa shalay waxa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tagi waayay in la raadsanayo bariyahan oo dhanba waan ogaa koow horta wadanka markaan soo galay waxa la igu yiri wax xaflada oo Somaliland ku qabsan karta haba yaraatee ma jirto dhibaato ka dhalan doonta qarandimis baa tahay dawladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugaynaayo waanu ku soo dhawaan ilaa casuumad la ii sameeyo waan ka diiday reer Boorama way wada joogaan si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud Somaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la xidho waxa la keenay oo wiigan la wareejinayay clip laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku idhaahdaa Mareykan aan ku qabtay على قرندمس باتهاي على كصوماليا هرجيسة كجهستي وحلا هي كليبيا هرجيسة قد ضبطت على كصوماليا كجهستي فلان ورد ده فيديو ده إنه كنا ويقروح بدنا لها إنه من كاسي شيء عد كودينا وان هي أنا جو فنانة صوماليات بانه ومد الصوماليات بقيس من هذا حمر جوكتي هذا جبوت جوكتي هذا جوجة جوكتي هذا هلكن جوكتو أنا جو هرت شعبي الصوماليات هذا تين واديس منتين سياسي أنا جو ميه سياسة دين أنا جو وحبي مجلين على كان دونا إنه يسكره state kan doonaan ka heesi kara dawladdan doonaan heesi kara madaxweynahan doonaan taageeri kara qof xora ayaan ahay
soomaalinimadayda cid uma daba fadhiisan naag Soomaaliyeed baan hayde marka ninkii doonaya inuu aniga xidhaynimadan yar soo hanjabay ilaa saaka dambi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yiraahdeen oo wadi soo xirin weyday shalay maxaan is xireeyaa xaafadeydii baa bad carfideed mariseen anigoo raba inaan Hargeysa tagaa shalay gurigayga la dumiyo la igu dhiiso soo xirey horta mid baan idin sheegayaa inaan idin imaado waan diiday anigu ka Boorama tagi maayo ka Hargeysana tagi maayo xaniiyay doontay in aniga inta la ii yimaado la xiro inta xoolaha iga la burburiyay xarig la iigu dari maayo calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay annagu waan ogahay waxa ka dhigay baaba taas aba ma fahanteen anigu Soomaalinimadayda farmaajana uma daba fadhiisanayo Muuse Bixin uma daba fadhiisanayo Ismaaciil Cumar Gelin uma daba fadhiya naag Soomaaliyeed baan hooyada yaabay anoo Soomaaliya i dhaleen anoo Soomaalina waan dhiman doonaa ninkii i qaadayay aniga i xidhay Hargeysa xoog igu geynayo raydeer halka ma joogaa Mustafa Caraale, Aerial TV, Boorama.